Hogaamiyaashii Soomaalida. Sabankii Islaamka. Haddaan hogaamiyaashii Soomaaliya soo maray Islaamka hortiis ku tilmaamnay geesiyaal, waxgarad, dagaalyahano, diblomaasiyiin, deeqsiyaal, akhyaar, goob ka hadal, niman eebe siiyey xikmad iyo garaad, sidee bay noqdeen markii Islaamku soo ifbaxay. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaa laga wariyey xadiis micnihiisu yahay qofkii idinku akhyaarsanaa xilligii jaahiliyadda Islaamka horyiis ayaa idinku akhyaarsanaanaya markuu islaamo haddii la waafajiyo. Mahad eebe markii Islaamku soo gaaray dhulka Soomaalida dhammaan hogaamiyaashii Soomaalidu waxay qaateen diinta Islaamka. Sida dad badan oo taariikh yahana gaaray ii sugeena. Islaamku wuxuu soo gaaray Soomaaliya intuusan gaarin Madiina. Hogaamiyaashii Soomaalida ee lahaa sifooyinkaas aadka u wanaagsan, Islaamku wuxuu u kordhiyey ciso iyo sharaf. Qoraalada taabagalka ah ee tilmaamaya taariikhda baaxadda weyn ee hogaamiyaashii Soomaalida markii Islaamku soo baxay waa tiro badan yihiin. Qoraalada ugu badana waxaa sameeyey badmareenno muslimiin ah oo maray xeebaha Soomaaliya. Badmareennadaas waxaa ka mid ah Al-Mascuudi 907, Al-Bakri 1065, Al-Idriisi 1140, Yaquut Al-Hamawi 208 iyo Ibn Batuuda 1308. Badmareennadaasi dhammaan waxay isku raaceen in magaalooyinkii ku yaala xeebaha Soomaalidu ahaayeen magaalooyin bilicsan, si fiican loo dhisay, nabadgelyo buuxda ka jirto, ganacsi xoog badanina ka socdo. Tusaale ahaan Ibn Batuuda oo ka warramaya heerka uu gaarsiisanaa maamulka magaalooyinkaas wuxuu buuggiisa ku qoray, doonyuhu markay yimaadaan marsada waxa uu imaan jiray askar naaquudaha weydiisa meesha doonta laga leeyahay, meesha doontu ka timid, waxa doontu sido iyo meesha ay u socoto. Dadka maray xeebaha Soomaaliya oo aad ula dhacay maamul wanaaga magaalooyinkii ku teedsanaa xeebaha Soomaaliya waxaa ka mid ahaa Yaxye bin Cumar Al-Cansi oo ahaa wasiir ka socday dowladdii Jacfar Cabdallah Al-Mansuur. Yaxye wuxuu maray dhammaan xeebaha Soomaaliya oo dhan. Wuxuu safarkiisa ka soo bilaabay Badda Cas, Caqaba ilaa Baabul Mandab, kadibna wuxuu uga gudbay Badweynta Hindiya, Xaafuun ilaa Mombasa. Wasiirkaasi magaalooyinkuu tegey wuxuu ka sheegay inay ka muuqatay deganaansho, amni, ganacsi baaxad leh iyo ku dhaqan diinta Islaamka. Dadka hogaamiyaasha ah ee aad looga yiqiin dhulka Soomaaliya xilligii diinta Islaamku ku fidaysay dhulka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa Suldaan Walemba oo xukumay Caluula. Waxaa la wariyaa in markii suldaankaasi muslimay dhammaan dadkii oo dhammi qaateen diinta Islaamka. Magaalo kasta oo diinta Islaamku gaartay waxa u siyaadisay sharaf iyo ciso. Magaalooyinkii markii hore caanka ku ahaa ganacsiga ayaa isu beddelay xarumo cilmo iyo aqoon. Xarumahaasi waxay soo jiiteen culimo magac ku lahaa dunida Islaamka. Tusaale ahaan buugga Al-Islaam fil Sharqi Afriqiya ee uu qoray Cabdiraxmaan Saki wuxuu soo guuriyey in ay dunida Islaamka oo dhan ka jirin 12 magaalo oo caan ku ah barashada tacliinta Islaamka, 7 ka mid ihina ku yaaleen Badda Cas. Sida rag badani qiyaasaan ugu yaraan 3 ka mid ah magaalooyinkaasi waxay ku yaaleen dhulka Soomaalida. Imaaradaha caanka ah ee Soomaalidu ka talinaysay waxay dhamaayeen 7. Waxa ugu baaxad weynaa uguna qadiimsanaa imaaradii Ifad oo xarunteedu ahayd Jabartiya. Imaaradaha kale waxaa ka mid ahaa Dawaaro, Arabiti, Hadiya, Shaqa, Baali iyo Daarad. Imaaradahaas qaarkood waxay xukumeen dhul ku fadhiga 300,000 oo kiiloomitir isku weer. Hogaamiyaashii imaaradahaas xukumay oo dhammaantood Soomaali ahaayeen waxa ugu waqti dheeraa suldanadii la baxday Saldanatu Cadal. Saldanadaas oo uu bilaabay Suldaan Cumar Walasmac Danyeexar, Suldaankii Ifad, sida uu qoray Ibnu Fadlilaah 1345. Saldanadaasi waxay soo bilaabatay sanadku markuu ahaa 680 Hijriga oo ku aadan 1250 milaadiga. Saldanadaasi waxay soo afjarantay markii Suldaan Amiir Maxamed Cali Cabdishakuur lagu dilay magaalada Harar 19 Oktoobar 1875. Hogaamiyaashii ka soo dhex baxay Soomaaliya casrigii jihaadka waxaa ka mid ahaa Imaam Axmed Ibraahim Alqaasi Axmed Gurey. Kutubta xustay imaamku aad bay u fara badan yihiin, waxaana ka mid ah Tuxfatu Samaan, Shahaabudiin kitaabkiisa Axmed Fiqi bin Cabdulqaadir, iyo Shahaabudiin Carab Arsalaani kitaabkiisa Xaadirul Caalimul Islaam iyo kutub kale oo fara badan. Qorayaashaasi dhammaan waxay Axmed Gurey ku tilmaamaan hogaamiye geesi ah, garaad badan, dagaalyahan ah, eebana ku manaystay xikmad iyo cilmi. Axmed Gurey eebaha u naxariistay wuxuu ku dhashay magaalada Harar sanadkii 1492 miilaadiga. Wuxuu wax ku bartay Harar iyo Saylac oo markaas ahaa xarumaha cilmiga kuwii ugu waaweynaa caalamka. Macrakada ugu taariikhda dheer guud ahaan taariikhda Soomaalida gaar ahaan kuwii casrigii Axmed Gurey waxaa ka mid ah macrakadii Sumburkuuri. Macrakadaas waxaa ciidanka xabashidu ahaa 200,000 waxayna wateen 16,000 oo faras. Macrakadaas waxaa Amxaarada lagaga dilay 10,000 oo nin iyo 114 badriiq. Hogaamiyayaasha kale oo macrakadaas ka qayb galay kutubta taariikhduna xusto waxaa ka mid ahaa Suldaan Maxamed Suldaan Cali, Sheikh Anis Sheikh Shakiib Cabdiwahaab, Amiir Xuseen Jartari, Amiir Saxarabawi Maxamed, Farshaxan Suldaan Sheikh Daawud, Garaad Cusmaan bin Jawhar. Markuu geeriyooday Amiir Axmed Gurey waxaa calankii jihaadka qaaday Amiir Nuur Mujaahid. Sida laga dhadhansanayo taariikhdaas malabka ah, hogaamiyayaashu waxay ahaayeen niman ku xeel dheeraaday aqoonta diinta Islaamka iyo tan dagaalka labadaba. Waxay ahaayeen niman garaadkoodu aad u sareeyo, abaabulka ciidamada iyo maaraynta shacabka lanadaba ku fiican. Waxaa iyana xusid mudan in maadaama Soomaalidu qayb ka ahayd khilaafooyinkii Islaamka ay jireen hogaamiyayaal Soomaaliyeed jagooyin muhiim ah ka soo qabtay xarumihii khilaafooyinkaas. Tusaale ahaan waxaa la hayaa raadad muujinaya in hogaankii sare ee ciidankii furtay Andulus rag Soomaali ahi ka mid ahaayeen. Raadka ugu weyn ee aan dul istaagay intaan baarayay hogaamiyaashii hore ee Soomaalida waa qabriga Sayid Saciid Al-Xabashi oo haystay ciidamadii Islaamka ee gobolka Gujarat, Hindiya. Sayid Saciid oo ahaa abaanduulihii ciidamada Islaamka ee gobolkaas wuxuu ahaa khabiir caan ku ah culumta dagaalka, wuxuu sidoo kale ahaa aqoon-yahan. Raadka ugu weyn ee muujinaya arrintaas waa maktabada weyn ee Sayid Saciid ka dhisay geygaas bilowgii qarnigii 8aad.